Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow cawka channel. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Google oo dabageli doonta dadka iska qariya. Shirkadda Google ayaa diiwaan gelinaysa goobaha dadka isticmaala ay ku sugan yihiin xitaa haddii ayna ogolayn iyagu. Warbixintan ayaa waxaa soo tabinaysa wakaaladda wararka ee AP. Arrintan ayaa saameyn doonta 2 bilyan oo isticmaala telefoonada Android-ka iyo Apple, kuwaasi oo isticmaala kheyraadda shirkadda Google. waxaa sidoo kale arrintan ka cadhooday baarlamaanka waddanka Mareykanka. Shirkadda Google oo ka jawaab celinaysa xaaladdan ayaa sheegtay in dadka ay barayso sida la iskaga xidho meesha uu qofku ku sugan yahay, balse waxaa la sheegay in xitaa haddii aad taleefankaaga ka xidho goobta aad ku sugan tahay la diiwaangeliyay halkii aad ku sugan. Si dadka loogu faahfaahiyo saameynta ay leedahay arrintan, wakaaladda AP waxa ay samaysay kheyraad muujinaysa dhaqdhaqaaqa uu sameeyay Ganas Akar oo ah cilmi baare kaas oo isticmaalayay telefoon Android ah, waxa uuna iska damiyay aaladda sheegaysa halka uu ku sugan yahay. Kheyraadda ayaa muujinaysa tareenkii uu saarnaa oo ku sugan agagaarka magaalada New York iyo sidoo kale booqasho uu ku tagay suuqa Chelsea. Waxaa sidoo kale ay kheyraaddu muujinaysaa adereeska gurigiisa. Haddaba kadib markii wakaaladdu ay samaysay baaritaankeeda, waxa ay soo bandhigtay hab dadka isticmaala kheyraadda Google ay iskaga masixi karaan macluumaadka goobta ay ku sugan yihiin. Kadib markii ay wakaaladda AP soo bandhigtay caddeynteeda, senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka ayaa shirkadda tiknoolajiyadda ku eedeeyay in ay sameeyeen ficilo ka cadhaysiinaya macaamiishooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل